dilay sida aawada kan dawladda ugu soo ooyayna ugu soo carana walaalayaal waa wax kale oo soconaa ma jirto waa sida arrinteeda kolka ilaa mise cishad bilaabiyatay أبو باباي بيكم وقفنا أنت وطن بيسنا شمعت إسرائيل أنا بقول لك أنا ماشي ما هي كلمة كلمة marka maxay lagu yiraahdaa magaalada ka cabna biyo iibad waan iska daafici karnay marka inaan dadka dawladda ku soo dacwoonayaan waan ka gaadhnay isku soo urursanay marshuucaan iskula soconaa waa sidaa saaka u soconay ciidan kale dhibaato dawladda u leenayna ma jirto dawladda markaa ma dawladda hoose dawladda hoose dawladda hoose dawladda hoose dawladda hoose inay loo gudbiso dawladda nooga qabo madaxweynaha ugu faaqa ballaygaan doonay in loo qodo oo laga jabo in loo qodan doonay kolka ilaa mise cishad bilaabiyatay inta roob ku daayo dhanba bilaabiyo uu jabay baabay intaasoo dhan waa ka daadoonaa weligii waa ka daadoonaa imikana uba ka sii daro wada jabay beerish dixaa ka bacay beerihii naga wada gooyay biyo beerihii naga wada gooyay haraad baana wada waxa la yidhi qabtaa الرحمن الرحيم عبشة دارت الشيء يوم عبشة دبوا شرتويا waxay ka cabanayeenaa kulay tole anu hoolkan ku jiro bidkaan shaqeynay laakiin waxa la fariintay soo gaadhay waxay ahayd in ballaygii uu ka jabay oo biyo la'aan ay ka cabanayeen seel asligeed bulshada ku dhaqan deegaankaasi carragaranuug ballaygu uu ka jabay waxa laakiin muso dhowr bilood ka hor ayaa lacag loo soo diray guddi baa loo xisaaray odayaala maamulka dawladda hoose kulay gudoomiyaha degmada ayaa la socday sala asligeed waxa loogu talagalay mar horeba in loo sameeyo dhoobiye qabatankii oo ballaygaas oo jabay dib loo kabo dhoobaqaadna loo sameeyo kharashkiisna wuu diyaarsan yahay oo qoloqolba joog ayaa soo caawisay hawshaasi fulinteeda un baana harsanayd odayaal iyo xildhibaano golihii hore deegaanka ah iyo culimada gobolka qaar ka mid ah ayaa hawsha u saaran oo gacantana ku haya marka bulshada deegaankaasi waxaan mar walba faraynaa in cidii loo xil saaray hawshaasi kulli way garanayaan haddii time ku yara fogaaday guddi bay leeyihiin guddidoodu ay u tagto odayaasha oo yiraahdaan xalanoo dardargeliya waysan hayn annaga fariintii weyn soo gaadhay ay naga wal sugaan oo annaga ayaa sida ugu dhaqsaha badan insha Allah biidilaahi kariim ku tala jirna inaynu cabashadooda uga jawaabno maadaama ay u diyaarsan tahay wax alla wixii lagu hawlgalayo oo wax ka maqaniba ayna jirin kaliya waxaan process gareynaynaa nidaamkaasi sidii loo dadejin lahaa kabka iyo dhoobaqaadka